taariikhdu markay 1972 waxaa dhigaal loo sameeyay luqadda Soomaaliga maanta ay tahay 2024 waxa laga joogaa 52 sano haddaba aan u laabto ujeedkan muuqaalka oo daaran waxbaha akhrinin ama habaarin haddii aanad aqoon u lahayn luqadaha qalaad sida English ama Carabi sabab ay ugu hortimaadaa qof kasta oo bilaaba ama ku soo dhaca fiilka waxbarashada luqadaha qalaad weli ma isweydiisay sabab ay luqadda Soomaaligu u noqon weyday luqad cilmi muuqaalkan gudihiisa ay ku ogaan doontaa aan ku bilaabay oo taariikhda aan dib ugu noqday luqadda Soomaaliga waxaan kuu sheegay inay 52 jirto waxaad ka jartaa 20 sano oo burbur ama dagaalo jireen waxaa soo xaraa 30 sano 30 sano gudahood cilmi inteeleg ayaa lagu soo turjumi karaa luqadeena afka Soomaaliga kuna sii darso oo ma jirin wasaarad duwaan gashan oo qaabilsan qaybta turjumida buugaagta ama ha noqoto dawlad ka jirta waqooyi ama mid koonfur ka jirta ha noqotee buug kasta oo la soo turjumayna waxaa turjumay waa shakhsi isagu isqaabilay oo iskii u turjumay isla waqtigan aan taaganahay ma jirto wasaarad qaabilsan turjumida buugaagta marka loo eego dalalka kale wasaarad ayaa u qaabilsan qaybta shaqadaana haysa inagase wax qaabilsan rag istiray ku dheeraan maayo qodobka waxaad ogaataa markaad doonaysa inaad cilmi ku dhigato luqadaada Soomaaliga inaad tahay sidii qof kartoon ku jira ama bogas ama meel furan ku jira isla markaana doonaya inuu cilmi badan raadsado isagoo oo xayndaab ama iskaam ku jira waayahay mar walba waxaynu aragnaa dadyo inoo sheegaya oo leh waxaa la akhriska inuu ku boorinaya oo yidhaahdaa the more you read the more you know the reader today is the leader of tomorrow oraha noocaasa inay yidhaahdaa akhriyaha maanta waa hogaamiyaha berri ruuxantii beenta ugu weynayd ee laynoo sheegaa waxay tahay waxaa la akhriyo iyadoo markaas sirta akhrinta la qarinayo maanta hadday u badato aad akhriska bilowdo qasab waxaa kaa hor imanaya qabad taasi oo ah luqadaha hadday noqoto website akhrintii hadday noqoto cilmi kasta baadhidii ama Carabi ama English ayaa furayaashii oo Korean waxay Soomaali u noqon waayay furihii sababtu tahay waa loo hagar bixin mana aha luqad cilmi ku qoran dhammaadka muuqaalkan waxaan kugu sheegayaa dad ilaa bilowgii la socotay ma jirto waddo aad cilmi ku baran kartaa ama aad akhris ku bilaabi kartaa maanta haddii aanad luqadaha furayaasha haysan ama Carabi ama English qof kasta oo kuu sheegi jiray ama media ka maqashid ama toos lagu sheegay wax akhrinta bilowna been ayuu kuu sheegay sirta akhrintu waa luqadaha waxaad dib u eegtaa qofka kuu sheegaya ama qofka media ka daawanaysa la akhriska hala bilaabo Soomaalidu wax ma akhrido isagoo heer inteeleg ayuu ka haystaa luqadda English ama Carabida waxa laga yaabaa qofkaas inuu luqadiisa markaa English ama Carabi uu heer fiican ka joogo wax ku akhristo dabeedna dadka kalena uu doonayo inay saasoo kale wax u akhristaan laakiin dhibaatadu tahay inaan luqadihii garanayn ilaa dhammaadkii ilaa bilowgii intaba waxaan kuu sheegayay luqadaha barashadooda bilow mid ama labo intaa wax ku eeg muuqaalkeeni maanta wixii waxaan filayaa inaad ka faa'iiday muuqaalkan gudihiisa waxaan kaga tegayaa ma jirto 2024 meel aad luqad ka bilowdaa dhigashadeeda aan ahayn moobilka gacanta aad ku haysatay aad muuqaalkan ka daawanayso